subax wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka ee maanta idinayso idaacadda kulmiye. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo guddiga qaran ee COVID-19 ugu baaqay inay kordhiyaan shaybaarka lagu baarayo dadka qaba cudurkaas. Taliyaha ciidanka xoogga dalka oo abaabul dagaal ka wada deegaano ka tirsan Galmudug. Puntland oo sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro xilliyada habeenkii dhac ka geysta magaalada Qardho ee gobolka Bari. Maamulka Galmudug oo magacaabay guddiga farsamada ee dhismaha golayaasha deegaanka ee maamulkaasi. Maamulka Hirshabeelle oo loogu baaqay inay caawiyaan dadkii ka barakacay fatahaadii webiga Shabeelle. Galmudug oo sheegtay in xal ka gaartay dagaal ciidamada dawladda iyo maleeshiyaad hubaysan dhawaan ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo. Hay'adda caafimaadka dunida oo hakisay adeegsiga dawo loogu talagalay caabuqa coronavirus. iyo dibadbax xoog leh oo ka dhacay dalka Ecuador. subax wanaagsan waa talaado 26 bisha May sanadka 2020 Farxii Xuseen Cali ayaa noo waramaysa. waad mahadsantahay Xuseen. subax wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay waxa uu gudoomiyay shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee la tacaalida xanuunka COVID-19. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda shaybaarka qaranka si ay u suurto gasho kordhinta tirada dadka la baarayo ee gobolada dalka. guddiga ayaa muddooyinkan waday qorshe lagu xakameynayo xanuunka COVID-19. Soomaaliya ayaa saameyn xoogan waxaa ku yeeshay cudurka corona oo dunida inteeda kale saameyn ba'an ku yeeshay. Taliyaha ciidanka xoogga Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa abaabul dagaal waxa uu ka wadaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage oo muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa kulamo istaba joog la yeelanaya saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee deegaanada maamulka Galmudug. Generaal Odawa oo hadda kulmadiisa ay ka socdaan magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa wuxuu halkaasi kulmo ku leeyahay saraakiisha ciidamada xoogga dalka. kulmada uu la yeelanaya Generaal Odawa saraakiisha ciidamada xoogga ayaa waxaa looga hadlayaa dardargelinta xoreynta deegaanada ka tirsan maamulka Galmudug oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. sidoo kale Generaal Odawa ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay inta uu deegaanadaasi ku sugnaa xerooyinka ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanadaasi, isagoo kumanaan ciidan kula hadlaya xerooyinkaasi. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada ay gacanta ku hayaan. Generaal Odawa oo kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta xoreynta deegaanada maamulka Galmudug oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. mas'uuliyiinta maamulka Galmudug iyo saraakiisha qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa wada howlgalkii ugu dambeeyay oo Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ka tirsan maamulkaasi oo ay gacanta ku hayaan. waxaa laga dareemayaa deegaanada maamulka Galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan militariga Soomaaliya, iyadoona haatan uu deegaanadaas ku sugan yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage, halkaasi oo kulamo gooni ula yeelanayo saraakiisha iyo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug. maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro habeenkii dhac ka geysata magaalada Qardho ee gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomana ayaa dhameystiray warkan. ku-xigeenka taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Jaamac Cismaan Axmed Dalax ayaa shir warbaahineedkan uu ku qabtay magaalada Qardho waxa uu kaga waramay xaaladii ugu dambeeyay ee dhinaca ammaanka ah ee gudaha iyo daafaha magaaladaasi. taliyaha ku-xigeenka waxa uu sheegay in tan iyo markii ay gudaha magaalada Qardho iyo deegaanada ku xiran ay ka bilaabeen in ay ka sameeyeen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaad kala duwan oo lala xiriirinayo falal dambiyeedyo ay horey u galeen. shakhsiyaadka ay soo qabteen taliyaha ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga ay iminka gacanta ku hayaan, isagoo soo hadal qaaday in dadka la soo qabtay ay ka mid yihiin dhalinyaro dhibaato ku hayay shacabka magaalada Qardho, kuwaasoo uu sheegay in dadweynaha ay moobilada xilliyada habeenkii ay ka furan jireen. sidoo kale taliyaha uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in waalidiinta deegaanka ay uga digayaan in ay ka digtoonaadaan in caruurtoodu ay guryaha ku xishtaan haddii iyaga oo falal
ammaan xumo faraha kula jira ay gacanta ku soo qabtaanna aysan saldhigyada iyo xarumaha ciidanka uga daba imaan karin. halkan waxaan baaq uga dirayaa oo aan la hadlayaa bulshada ku nool gobolka Karkaar. waxaan kala hadlayaa ammaanka. waxa soo batay oo ayaamaha kan barbaleem farakul ku haya magaalada dhalinyaro furanaysa moobeelada tooreeyo sidata bira sidata dadka dilaya luqyada gelaya ciidanka booliisku gacan kulul ayay ku hayaan 9 ka mid waa noo xiran yihiin nimanka waxaanu geynaynaa oo aanu ku xiri doonaa qaybna waa gudbinay inta kalena waa gudbinaynaa maantaanu gudbinaynaa wixii baaqi ku ah magaalada oo weli kiiska ku jirana waxaanu ku soo qabanaynaa gacan bira inay naga fikanayn baanu u sheegaynaa shacabka oo aan dhammaan keeni doono sharciga. waxaan u sheegayaa waalidiinta caruurta dhalay oo ka daba imanaya oo saldhigga imanaya markii la soo qabto oo ilmahoodu la saxan yahay war uma haysaan ilmihiin sharcigaanu marinaynaa kaanu soo qabanno sharcigaanu marinaynaa mana ku xiri doono gobolka Karkaar waxaanu u gudbinaynaa gobolada kale khaas ahaan waxaanu geyn doonaa gobolka Kulul Boosaaso RF baa ilmihiina aanu diraynaa waxa jira niman caadaystayaal iyo kuwa hadda ee bilaabay labadaba waanu haynaa. hadalka taliyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo waayadii ugu dambeeyay ay soo baxayeen cabashooyin ka imaanayay qaybaha bulshada ku dhaqan magaalada Qardho kuwaasoo ka ashtakoonayay dhalinyaro ku caanbaxday furashada moobilada balse howlgallada ciidamada ay ka bilaabeen magaalada ayaa la filayaa in arrimahaas ay wax weyn ka bedesho. maamulka Galmudug ayaa waxa uu magacaabay guddiga farsamada dhisidda golayaasha deegaanka ee maamulkaasi. Faysal Cabdiqaadir Yuusuf ayaa dhameystiray warkan. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Galmudug ayaa waxaa loo magacaabay guddiga farsamada dhisidda iyo golayaasha deegaanka ee maamulkaasi. xubnahan oo tiradoodu gaaraysa ilaa 7 xubnood ayaa waxay ka shaqeyn doonaan sidii loo dhisi lahaa golo deegaan iyagoona bilaabi doonaan kulamo ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka ay ka kooban yihiin gobolada Galgaduud iyo Mudug. Saleemaan Cabdullaahi Xasan ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha guddiga farsamada iyo dhisidda golayaasha deegaanka ee deegaanada Galmudug. dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Galmudug Cali Daahir Ciid uu shaaca ka qaaday in degmooyinka gobolada Mudug iyo Galgaduud loo sameynayo golo deegaan oo dadka degmadaasi ay u baahan yihiin si ay u doortaan maamul cusub oo iyaga leeyihiin. tallaabadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhawaan la filayo guddiga farsamada dhisidda golaha deegaanka ay booqasho ku tagaan magaalooyinka waaweyn ee gobolada Galgaduud iyo Mudug iyagoona kulamo gooni la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan Hirshabeelle ayaa laga dalbaday in ay gargaar la gaaraan dadkii ka barakacay fatahaada webiga uu ka geystay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. ayadoo tuulooyin hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo saameyn ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle ayaa qoysas horle oo ka barakacay tuulooyin hoostaga degmada Balcad ay gaareen degmadaasi waxaana tuulada Baqdaad oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qoysas degnaa ay ka barakaceen fatahaada webiga Shabeelle taasoo ay saameyn ku yeelatay fatahaadaasi. gudoomiye ku-xigeenka tuulada Baqdaad ee degmada Balcad oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixiyay xaaladda fatahaada iyo saameynta ay ku yeelatay beeraha halkaasi ku yaala iyo qoysaska halkaasi ka barakacay. tuulada Baqdaad waxay ku sugan tahay fatahaada ka dhacay webiga Shabeelle ayaa saameeyay kaasoo noo deestay dhinaca webiga bari beerihii noogu yaalay oo gaarayay 700 hektar oo biyaha naga qaadeen. dhibaatadaas ayaa saameynta ugu weyn ah. taasi way jirtaa barakac ayay taasoo raadsanayaan nolol maalmoodkooda meelihii ay ka helayaan. qoysaska ku dhacan waxay gaarayaan ilaa 1,000. sidoo kale maamulka tuulada Baqdaad ee ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baaq u diray maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hirshabeelle mas'uuliyiintooda inay gurmad la gaaraan qoysaskaasi dhibaatada ku haysata deegaanada degmada Balcad ee fatahaada ay saameynta ku yeelatay oo daliga ay beereen xagta ay marsiiyeen fatahaadada webiga Shabeelle. waxaan u baaqayaa maamulkan degmada iyo kan gobolkaba iyo hay'adaha caalamka oo deeqaha bixiya inay si degdeg ah
wax noogu qabtaan dhibaatadana. Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saameyn xooggan oo ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle, qoysasna ay ku barakaceen oo degan hareeraha webiga Shabeelle. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. maamulka galmudug ayaa shaaca ka qaaday in xal laga gaaray colaadii ka dhalatay dagaal maalmo ka hor ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa dhameystiraya warkan. Axmed Maxamed Cumar Falagle, wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug, ayaa shaaca ka qaaday in xal laga gaaray colaadii ka dhalatay dagaal maalmo ka hor ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo kaasoo u dhaxeeyay maleeshiyaad u abaabulan qaab beeleed iyo ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee danab gaar ahaan kuwa fariisin ku leh koonfurta magaalada Gaalkacyo. Wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug ayaa sheegay in arrintaasi ay xaliyeen isla markaana uu maamulku la wareegay hubkii maleeshiyadii weerartay ciidanka danab ee u abaabulnaa qaabka beeleed. wasiir Falagle ayaa xusay in beelaha degan gobolka Mudug ay aad u hubaysan yihiin balse maamulka galmudug ay dajiyeen qorshayaal lagu qarameynayo maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan deegaanada galmudug. ciidanka waxa weeyaan hub beeleed oo ciidamada ku hubaysan ay yihiin beelaha subka iskale ayuu ahaa. waana arrin weliba jirtay oo deegaankaasi qaasatan Mudug aad uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo هو قدروا دراسات باجرة وملشات صارنا وبرو لكن هكذا أول يروح هو ملشات يهوب كل دولة الكلمة ويسكول ولكن على أول قرايا صليب أول قرايا نقطة هذا دولة الرسولية أحمد عبد الكريم قرقور ومدحنا وياي جزء انتشاري الله in ciidamada aysan oo daraawishta galmudug aad dib loo yeelo la xoojiyo oo yaraa ama afeesay marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa ayagoo la kala sooci doono loo eegi doono qaabka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan inta markaas baahi ciidameed iyo inay qoys buuxin karaan loo arko tababarada loo furi doonaa waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay dadka dhalinyarada saarada waa lagu qalabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kala istaahilaana waa mudan doonaa haddii allah ugu telefono. hadalka wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maamulka galmudug ay wadaan qorshayaal lagu qarameynayo maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Kulmiye. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay tijaabooyinka lagu waday dawada malaariyada in lagu daweyn karo coronavirus iyo in kale si ku meel gaar ah in la joojiyo sababo la xiriira badqabka dawadaasi awgeed. hay-adda WHO waxay isniintii sheegtay wadamo dhowr ah in ay tijaabooyinkii ay wadeen si ku meel gaar ah loo joojiyay. go-aanka WHO ayaa imaanaya kadib markii daraasad dhowaan la sameeyay ay ku tala bixisay dawadaasi in ay khatar dhimasho kusii kordhinayso bukaanada uu soo ritay COVID-19. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sheegay in uu dawada u isticmaalay si uu uga hortago corona. madaxweynaha Mareykanka ayaa marar badan ka dhawaajiyay dawada looga hortago cudurka malaariyada in cudurka corona lagu daweyn karo balse talaabooyinka iyo digniinaha ay soo jeedinayaan khubarada caafimaadka waxay ku sheegeen dawadaasi in ay khatar dhinaca wadnaha ay keenayso. ugu dambeyntiina dhageystayaal kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimada dalka Ecuador iyagoo ka careysan dhaqaale xumada liidata ee uu wajahayo dalkaasi. dhaqaalaha dalkaas ayaa saameeyay habka ay dowladdu kaga jawaabtay caabuqa safmarka ah ee corona oo kiisas badan oo kamid laga helay dalkaasi. toddobaadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaas uu ku dhawaaqay in la xiro qaar kamid ah kambaniyada dalkaasi iyo in la dhimo mushaarka shaqaalaha dowladda. Ecuador ayaa ah mid kamid ah wadamada dhaqaale ahaan ugu liita ee ku yaala koonfurta Ameerika. warkaas waxaa ka wanaag inta